ogtihiin maanta waxaan ku jirnay maadaama ahayd bilowgii baartinka cusub dekada doonyaha iyo maraakiibtu ay ku soo xiran doonaan hadda halkan waxa aragtaan oo ka socda waxa weeye shaqadii shubabkaas oo noqonaya kuwii maanyareebka ahaa oo markii dekada la dhiso biyaha hirka soo qaboojin lahaa oo lagu kala reebi lahaa mataqaanaa hirka lagu daciifin lahaa hadda waxa la shubayaa waa 9 tan si aad aragtaan waa u jeedaan haamuhu waa safan yihiin way isbedelayaan hadhow meel walba qayb walba waxba galaya shub 12 baa galaya 15 baa galaya marka halkii xababa hadda waxa weeye baabuurka aad arkaysaan xabadiyo barkili uu qaadaya 24 saac gudahoodna waxa la rajaynayaa inay ku qalasho oo marka ka bacdi laga furo haddana kuwii kala saa loo sameeyo garoonkan ballaaran oo hadda aad arkaysaan waxa loogu talagalay in shubabkaas ilaa iyo intaas oo dhan la dhigo looguna talagalay inuu noqdo wixii hirka ka jabin lahaa dekada ama maanyareebka loo yaqaanay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shaqadaani waa tagtay oo u jeedaan waa face waa shaqadii ugu dambeysay ee badda markii la diyaariyo hirka looga ilaalin lahaa weeye marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shaqadaasi Ilaahay mahadiisa si fiican bay u socotaa si fiican bay noogu socotaa alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh wax hadda dhiman oo qalabkii dekadaas ay ku shaqeyn looga shaqeyn lahaa oo ka maqan ma jiraan marka waxaan rabnay inta kale inaan idin sharaxno shubkan iyo noocu noqon doono iyo intaas waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa anigu ah cali nuur afrax oo kamida injineerada warshada dekadan hadda ka shaqeynaya waxaan rabaa inaan si wax yar oo kooban idinkaga sheego warshada tan gadaashayda ah oo gaarigu hoos taagan yahay iyo say u shaqeynayso warshadan waxay samaysaa shubka waxa la yiraahdaa batching plant haddana waxay sameynaysaa waa shubkaas oo halkaan inta laga qaado lagu shubi doono blockyaal waaweyn oo iyagana arki doontaan oo meel halkaas yaalo blockyadaas oo la yiraahdo antifar blocks la yiraahdo blockaskaas antifar blockska waxa weeye kuwii markii wave breakerka wadada dekada la dhiso banaanka laga dhigayay oo hirka ka jibinayay si ay warshadaasi dekadaas ay protector u ahaato muddada loogu talagalay shubkii weeye shubkaas maanta noo bilowday waa shub muhiim ah marka warshadani waxay sameynaysaa saacadii waxay sameyn kartaa 120 mitir cube oo shub ah shubku warshada kama bilowda wuxuu ka soo bilowday marka hore marxalada kala duwan oo leeyahay laboratory ka soo bilowday laboratory-ga injineerada waxay ku soo sameeyeen mix design-kii loogu talagalay blockyadaas inay ku soo sameeyaan laboratory ku soo test gareeyeen inta ciid lagu darayo inta dhagax lagu darayo inta shamiito lagu darayo inta biyo lagu darayo inta chemical lagu darayo waa la soo qiyaasay hore loo soo qiyaasay warshada computerkeeda la geliyay warshada miisaankii ku soo sameynayso gaarigaas ku shubaysa gaarigu waa qaadaya wuxuu geenayaa meeshii lagu shubayay marka warshada horta shaqadeeda waa taas waxaan rabaa marka inaan ogaataan idin sheego shubkani sida dadku hadda badankooda u maleynayaan waa ka adag yahay shubku waxa weeye waa engineering materials weeye mix design laboratory lagu soo sameeyay hadana raacaynin waxa la sameynayo lama yaqaan waxay yihiin weeye control koodana ma laha xoog oo dhawdi oo shubku yeelan doona lama yaqaan marka si waxa soo looga baxo system-kan waa system oo engineering ah oo la raacayo principles ama specification ama shuruud mashruuc uu leeyahay la rabo in la buuxiyo waxaan lagu buuxin karaa in wax kasta miisaan ay ku socdaan marka biyuhu waa miisaaman yihiin jaayga kala nooca waa miisaaman yahay chemical-ka lagu darayo waa miisaaman yahay waana la yaqaanaa markii la gaaro muddada xoogga uu gaarayna waa la yaqaanaa hore loo yaqaanaa midkiiskan hadda waxaa la yiraahdaa class 25 newton per mm square waxaa laga rabaa ugu yaraan 25 newton millimeter square kiba inuu xooggeeda gaaro miisaanka la soo sameeyay ilaa 39 buu gaarayaa kaasaana lagu soconayaa haday waxay iska dhimaana waa la garanayaa oo laboratory ba shaqo kasto shub kasto halkaas lagu sameeyay laboratory ku dhinac yaala laboratory-gaas ayaa sample meesha laga soo qaaday la geynayaa oo lagu test gareynaya 28 casho kadib 7 casho kadib 14 casho kadib mar walba marxaladda xoogiisa oo jooga la soconaya marka waxa weeye taas waxa weeye introduction yar oo aan ka siinayo warshada iyo shubkaba ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh ilaahana soo gaarsiin meesha maanta aan marayno meeshaan hadda aad shaqada ka socotaa waa sayidkii barnaamijkii dhisitaanka dekada Garacad ilaahay baa mahad iska leh kun iyo kow shar awoodiyada ay ku tirsan tahay awal iyo aakhir ilaahay subhanahu wa ta'ala soo gaarsiin mahad iska inta ka bacdi runtii wax lagu farxo meesha ay wax marayaan maanta shayga faraha badan oo arkaysaan oo hadeer
intaasoo tan waxaan garanayaa maalinkii ugu horreysay oo istaadiga la samaynayay GPS-ta jayga aan ku samaynay yararka ah runtii waxa uu u qaatay muddo aad iyo aad maartay u dheer meel fog inaan jawaan kaga soo gurno gacmaha kaga soo gurno oo deegaanka ay ku yarayd maanta intii loo baahdo waxa soo qalab yaalay meeshaas maartay wax isla marayo waa ilaahay mahadiis haddaan nahay bahda wadaagsan ee kambaniga maartay dadka ku bahoobay Soomaaliya muwaadiniinta ah ku bahoobay maalgashiga dekada Garacad waxa kaliya oo aan sidaan wax ku faani kartaan waxa weeye inaanu ka jabinay maskaxda ummadda Soomaaliyeed silsiladihii ku dhaganaa oo ahaa inay waxba qabsan karin ay markasta ku tiirsanaadaan shisheeye iyo dawlado kale insha Allah waxaan rajeynayaa marka dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga inay ku daydaan arintaas oo qof walba meesha uu joogay deegaanka uu joogay inuu wax ka qabsado dhulkan maadaama Ilaahay noogu talagalay in aanagu camirno oo noo sameeyo walladii khalaqa lakum ma fil ardi jamiican ya waxa loo baahay inaan camirno oo meel walba aan xooggeena iyo awoodana ku tashano Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saarno isuna soo ducayna meel kasta oo Soomaali joogtana waa dad walaalaha waa dad ehela ay maaragtay ka iskaashadaan oo isgarabsadaan sidii ay ummadda horumar u gaarsiin lahaayeen akhriya adduun bana ay ku dadaalaan